waxaan la soo kulanay hooyo danyar ah hooyadaas waxay iibinaysaa shumburo iyo muus 10 xabo ah ganacsigaygu waa waxaad adlaysa waxaan heelase wax ogaada ku korkorin lahaa kala muus badan qaato hooyo Xaliimo Ibraahim inay horta marka koowaad ay ahayd hooyada ah islaantaas oo markaa u shaqeyso qoys markii hore salaariir bad iibin jirtay maanta intaas aad haysaa ayda markiisa aan iibinayaa insha Allah ganacsi wanaagsan baa tartanka adeega bulshada ee jaamacadaha Soomaaliland waa barnaamij qiimo badan oo uu maalgeliyo bangiga caalamiga ee Premier Bank isla markaasina ay fulinayso xarunta arrimaha bulshada ee Umma Center waa barnaamij ay ku tartami doonaan 16 kooxood oo ka kala socda 8 jaamacadood oo kamid ah jaamacadaha Soomaaliland kooxaha tartamaya ayaa fulinaya mashaariic adeeg bulsha waxaana ugu dambeyn kala saari doona xeeldheerayaal adeega bulshada sanado badan ku hawlana waxaa hadda soo galaya ardayda ka qayb galaysa tartanka ee ka socda jaamacadda Armas waxa iyaguna hadda soo galaya ardayda ka socota jaamacadda Abaarso oo iyaguna ka qayb galaya tartanka waxa imika soo galaya goobta tartanku ka dhacaya madaxa barnaamijka tartanka adeega bulshada oo tartamayaasha siin doona hawlaha ay qabanayaan subax kale qurux badan oo aynu isugu nimi tartanka adeega bulshada ee jaamacadaha Soomaaliland soo dhawaada labada jaamacadood ee saaka tartamaya intaana bilaabin waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo barnaamijkeenan khayriga ah inuu maalgeliyay bangiga caalamiga ee Premier Bank labadii mashruuc ee taag ku tartamiseen gacantan ku haya intaanan sagelin maxaa filaysaan ku horeeya bahda Armas bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan ka soconaa jaamacadda Armas gaar ahaan departmentiga social work waan ku faraxsanahay inaan tartanka qayb ka noqono waxaan filaynaa mashruucana loo diray inuu ku soo guuleysan doono insha Allah magacaaga iyo kooxdaada magacaygu waa Saudi Umar garabkayga waxa taagan Farduus Umar Ismaaciil iyo Naciimo Saalix Ibraahim aad iyo aad wad maasad idinkana sidoo kale dareenkiina bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Maxamed Daar Cabdiraxmaan halkan waxa taagan Asma halkan waxa taagan Xamse waxaanu ka soconaa jaamacadda Abaarso waxaan rajaynaynaa inuu filaynaa khayr insha Allah iyo in dadka masaakiinta loo adeegayo sida ugu wanaagsan ugu adeegayo uguna macquulsan uguna caqli galsan khayr baan rajaynaynaa iyo guul aad iyo aad baa labadiina u mahadsantihiin halkan waxaan ku hayaa labada mashruuc ee maanta ku tartami doontaan mashruucyadan idin la wadaagi doonaa waxaan see rabaa inaan idhaahdo waa wareegii koobaad mashruuca maanta aad qaadanaysaan iyo sidaad u fulisaan waxay qayb ka noqon doontaan inaad u wareegtaan qaybta labaad ee mashruuca marka ugu horeysa qolo waliba mashruucooda qaadan doontaa bulshadana waxay la wadaagi doontaa wixii u soo baxay ku soo dhawaada waad furaysaa dadkana waxaad u sheegi doontaa mashruuca aad saaka qabanaysaa mashruucan ku tartamina amanna loo dhiibay waxa weeyaan caawi hooyo danyar ah oo suuqa ku qanacsata aad iyo aad baad mahadsan tahay idinkuna waxa halkan noogu qoran oo noo soo baxay caawi hooyo tartan ah hooyo danyar ah oo ku ganacsata suuqa طبعا waxaa idinka doonayaa inaad mashruuca qaadateen cidda aad u fulinaysaan noloshooda wax muuqda oo bulshada oo dhamay arkaysa aad ka bedeshaan nidaamka Ilaahay guuliga gobonimo idin rajeynaya labadiina kooxoodba hadda tartamayaashu waxay bilaabeen inay qorsheeyaan maareynta hawsha laga rabo si aynu hawshan u sii gudagalno waxyaabo la inooga baahan yahay lambar 1 waxa ka ah laba qodob baa loo baahan yahay marka ugu horeysaan in ka wada hadallo qodobka ugu horeysa waxa weeyaan inaan groupkan inaan gudoomiye u sameysano si aynu hawshu u gudagalno haddaan anigu daana hadalka wada aan iska bilaabo gudoomiye waxaan jecelahay inuu inoo noqdo walaalkeen Maxamed marka qof walba fikirkiisu dhiiban doona asmaa aadna maxay kula tahay ku soo kala hadii Xamse iyo Asmaa intaas raacay ana waxaan ku diidaa meesha ma yaalaan ana waa qalay hawshaasi saa insha Allah saasaynu ku aqbalay marka ayaan ka dhiganaa gudoomiyaha oo Saudeen ka dhiganay way magaca aan la baxayn oo hadhow bulshada lacala hadii ay noqotoba wax sii waara
aynu bulshada la tegi doono muxuu noqon karaa danyarkaaga ka waran may walaal laga yar fiican yahay ka maanta ka dhigano daryeelo bulsho haa waa si fiican maadaama qof danyar aynu caawinayno magaca ugu habboon yeelo waa si wacan waxa loo baahan yahay astaan inuu kaga soconay gurbiyada kale kaasoo ah magac inuu gruubkeena ula baxo horseed ha labada magac waa laba magac aad u marka adiga markaan kala saaraya anigu waxaan dooran lahaa magaca samakaab ee walaashanaas bay soo jeedisay أنا وكرة سمكاب ومضى على سويها عشان هوشين هنا كترتمي صح كنا قدوميه إني دوراني هوشنا إسقى إن شاء الله وحين تكلم بيا إسقى إنه تشير من قرين دونا وإسقى هوشين نص الله دونا إيه بقى أنت إنه واحد كشرة إنه مساعة وإنه هو يدن يراه والسوق عم يقعد يحكي سوق براسته حتى بس إنه هو يدا وساعة وإنه حال إنه قبل هي حيك رتها إنه قبض كرنه أما هو يدا أو قبض كرنه إنه أو دقاليه من الماسكرين هذا أنا أقول فكران تيجي كهالله كل قدر العكس اللي نقوله إنه أرحنا وإنه هنا hawshana go'aan imika ma gaari karaan aniga saaraya ahaantayda go'aan waxaanu gaari karnaa markaynu goobta leeyno dira aynu tagno aynu hawshii si dhibliya u gudagallo aynu dadkii xog badan aynu raadino dadkii aynu la kulanno hooyooyin badan aynu la kulanno markaasaynu kala dooran karnaa aynu garan karnaa qofkaynu dooranayay إن شاء الله falanqayn iyo dood dheer kadib tartamayaashu waxay isla qaateen sidii hawsha ay u gali lahaayeen waxaana ay bilaabeen in baabuurtooda ay fuulaan hadda kooxda ka socotay jaamacadda Armas ayaa waxay raadinayaan ciddii hawsha ay u qaban lahaayeen waxaana baadigoob ay ugu jiraan inay helaan qof ku habboon waxa iyaguna baadigoob ku jira tartamayaasha ka socday jaamacadda Abaarso oo iyaguna raadinaya cid ku habboon in adeega bulshada ay u qabtaan tartamayaasha ka socday jaamacadda Armas ayaa iyagu helay ciddii hawsha ay u qaban lahaayeen sidoo kale tartamayaasha ka socday jaamacadda Abaarso ayaa iyaguna helay ciddii hawsha ay u qaban lahaayeen aduu magaca ku bilaabay maaniga xaliima xaliima cabdi xaliima cabdi cabdille waxaad iga warantaa qoyskaaga wuu iska barakaysan yahay wallaahi imsaad ka koobantahay waxaan ku koobanahay 5 baan imika nahay 5 baan nahay marka imika ganacsigaaga waa shumburadin iyo muuskan gabadhan waliba saaka ka soo qaday inta yara shumburadin baan iibiyaa seed ku heshaa marka haddii hooyo layga iibsado xabadda inta yare lacagteen helo kaa xanuunsanayaa siiyaa cid kaleba ma siiyo weli xilliga ma iibsan waxba hal baa layga iibsaday xaggaa layga waxaad iiga warantaa waxa kuugu daran nimanka kaa caawin karno waxa iigu daran nimanka iga caawinaysaa xogaa raashinahooda dhigtaan haryoona haddaad ii heshaan oo xogaa yaroo miisa aan dhigto oon dee ku shaqaysta maalintii oon dee ka soo saarto wixii yare caanaha iyo sonkorta yar yaan kala soo baxo labadaas wuu ugu daray ganacsigaaga inta kaaryoonahayga aad ii ballaadhisaan aan iskaga soo ganacsado kan tartamayaasha ka socday jaamacadda Armas ayaa bilaabay inay gudagalaan hawshooda oo adeegii bulshada ee ay wadeen waxay u qabanayaan hooyadani suuqa ku ganacsataa geesta kalena kooxdii ka socotay jaamacadda Abaarso ayaa iyaguna bilaabay inay gudagalaan hawlahoogii oo waxay u adeegayaan hooyadani hooyadaanagu markaanu aragnay hooyo aad ugu baahan caawinimo ahayd kiiskaanu xalinayna wuxuu ahaa inaanu caawino hooyo ganacsata oo danyara marka hooyada stage 1ka aanu qaadayna waxa weeyaan inaanu horta first 1 u iibino qalabkii ay ku qanacsanaysay oo koow ka yahay kaaryoone kaasoo ay ku iibinaysay muus iyo ganacsigeedii aan u sii ballaadhinayna insha Allah hooyo goobtaan kuugu talagalnay aan doonayn inaad ganacsiga ka faa'iidaysatid oo aad ku shaqaysatid waa tan insha Allah ka waran dareenkaaga imika iyo kii hore aad u fiican yahay aad farxad baad igu beerteen hooyo ilaahay idamkiisa markii hore ka waran kii hore iyo ka imika maasha Allah hooyo imika aad baan faraxsanahay hooyo farxad weyn baa igu koronay sidoo kale hooyada waxaanu ku caawinay deeq raashin oo bisha Ramadaan aan ugu talagalnay waxay sidoo kale maamadu noo sheegtay inaanay wax raashin aanu guriga u oolin
quuta daruuriga ay maalintaas soo hesho un ay isku kafeeyaan nolol maalmeedkooda ay ku kafeeyaan. bismillaahi raxmaani raxiim. hadda waxaan la fadhinaa hooyadii aanu saaka la kulannay oo dareenkeeda noo sheegtay oo aanu waraysanay oo baahiyaadkeedii iyo waxyaalihii ay markaa ka caawinaysay ee ay lahayd waan u baahanahay aan u soo dhammaystirnay. hooyo markii hore salar yar baad iibin jirtay si aanu saaka halkaa kugu nimi, maantana intaasaad haysaa, sideed baahida gurigaaga ugu maaraynaysaa? aan iibinayaa insha allah hooyo waxaan kuu rajaynaynaa inaad si fiican uga ganacsan doonto. ilaahay idin barakeeyo. iminkana waxaynu joognaa gurigii maamo xaliimo ibraahim. markii hore goobtaynu ku kulannay waxay ahayd goobteedii shaqo aynu waraysiga kaga soo duubnay. haddana waxaanu nimid gurigeedii annagoo u soo qaadnay adeegeedii raashinka ahaa oonu guriga ugu keennay. bal waxaan weydiin doonaa dareenkeeda maama xaliimo ibraahim. maama soo dhowo. insha allah khayr, ilaahay khayrka idin waafajiyo, janna firdowsina ku kulmi insha allah. ilaahay idinkana caafimaadka idin rajaynayaa, kii bixiyey iyo kii keenay kii soo qaaday inta waan ducaynayaa. amiin hooyo, annaga waxaan idin rajaynaa insha allah. kolley de baahiyo way iska badan yihiin oo lama wada dhamayn karayo, laakiin adeegaa yaree maanta aan ku keennay baahidaada muxuu ka tari karayaa? insha allah in badan wuu dabooli karayaa. maasha allah maasha allah, boqolkiiba boqol. bismillaah, magacayga waa Nicimo Saalix Ibraahim, kana socota jaamacadda Armas University. gruubkayga haddii aan idiin sheego magaciisa ama aan idin xasuusiyo waxa weeyaan daryeelo bulsho. kiiska aanu maanta u baxnay si aan usoo xalinayna loo dhiibay waxa weeyaan wuxuu ka hadlayay hooyo danyara oo ku qanacsata suuqa sidii loo soo caawin lahaa. awalan ilaahay baa mahad iska leh, waanu soo xalinay intii aqoonteeda iyo fikirkeygaba ahayd. waxaanu tagnay suuqa, aanu u baxnay suuqa, waxaanu la soo kulannay hooyo danyar ah oo iibinaysa shumburo iyo muus. kabacdi hooyadii waxaanu u kuurgarnay si aan u ogaano informationkeedii iyo xaaladeedii aanu u wareysano. kabacdi markaan wareysiga ka qaadno information nagu filan aanu helnana wixii awoodeeda aanu ku caawin karnana aanu ku caawino. dhibaatooyinka ay nala wadaagtayna siday priority-ga u leeyihiin aanu kala siino. hooyadaasi horta runtii waxaa haystay dhibaatooyin aad u fara badan, waanay ka muuqdeen physical ahaan iyo mental ahaanba. waxaanay ahayd runtii qof aad u da'weyn oo suuqa ka shaqaysanaysa. hooyadaasi waxay iibinaysay saan idiin sheegay shumburo iyo muus 10 xabo ah ka kooban ayuu muus ka koobnaa. hooyada markaan xaaladeedii wareysanay runtii hooyadaas waxaa haystay dhibaatooyin aad u fara badan, waxayna la wadaagtay faamiligeeda aanu ka wareysanay. faamiligeeda waxay noo sheegtay inay 4 qof dhashay. sidoo kale hooyadaasi waxay noo sheegtay inay caruurteedu agoon yihiin. sidoo kale waxay noo sheegtay inaanay helin wax cunto oo ay cunaan oo ay ku noolaadaan, quuta daruuriga ay ka hesho maalinta ay suuqa joogta mooyaane. sidoo kale hooyadaasi waxa ay faa'iidaa maalintii 10,000 oo shilin. 10kaas ayay nolosheeda ku maarisaa. hooyadaasi sidoo kale waxay nooga warantay inaan suuqu iska adag yahay, aanay mararka qaar dhicinba inaan waxaan laga iibsan 10,000 aanay faa'iidinba. hooyadaas waxaan anagu maanu siinin, yacni waxaanu doonaynay kumaanu qancin, waxaanu siinay self determination ama attitude-keeda in iyadu dhibaatooyinka ay doonaysa waxa loo qabto ay noo sheegto. kow waxay noo sheegtay in hooyadaas ganacsigeeda loo ballaariyo, ganacsigeedu ahaa muus. sidoo kale hooyadaasi waxay noo sheegtay in qalabkii muuska ay ku iibin lahayd sidoo kalena aan u iibino. hooyada waxaan u iibinay qalabkii ay muuska ku iibinaysay dhammaantiiba. sidoo kale raashinkiina waanu u iibinay dhammaantii siduu u dhammaystirnaaba. sidoo kale hooyadaasi waxa ay naga codsatay inaan ganacsigeeda ka dhigno ganacsi position aanu dejino. alxamdulilah, annagoo wejigayga adeegsanayna iyo jaamacadda aanu ka soconnaba waxaan wejigayga ku kasbanay qof inuu barxadda meeshiisa ku qanacsanayo hooyadaas iyo aanay cidina ka qaadi karin ay ku qanacsan karto. sidoo kalena ay tahay meel suuqa oo muuskeedu uu ku shaqayn karo, faa'iidana ay ka heli karto, ku socon karo. alxamdulilah, hooyada marka ugu horeysay ilaahay baa nagu asturay, ilaahay baana awoodda leh, ilaahay baana aqoonta na siiyey aanu ku xalinay kiiskeeda. sidoo kale waxaanu adeegsanay principalskii ka mid ahaa social worker aan soo dhiganay. principalskii waxaanu adeegsanay inaan hooyada accept garayno marka hore inayna aqbasho maadaama meesha kamaradi maraysay, waayo dadka qaar waxaa dhici karta aan kamarada diida. marka hooyadaas suuliya saxiix baan ka qaadanay.
waxaana noo ogolaatay acceptance-ka anaguna waan aqbalnay iyaduna way na aqbashay sidoo kale Premierka wuxuu aad iyo aad ugu mahadsan yahay deeqda uu dhiibayo ee lagu caawinayo dadkaas aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa aad baan u mahadsan ilaahay miisaanka xasanaadka u saar annaga oo ka soconnaa abaarso jaamacadda abaarso tech ahna waliba group 2 lana baxnay oo magacayga uu yahay marka groupka loo yaqaan Samakaab magacaygu waa Maxamed Daahir halkan waxa taagan Asma halkan waxa taagan Xamse waxa aanu qayb ka nahay jaamacadaha ka qayb galaya tartanka caalamiga ah ee uu qabanayo waxa aanu wareysanay hooyooyinkii danyarta ahaa ee suuqa ku ganacsanayay ilaa 4 hooyo ayaanu wareysanay mid walba ama hooyo kasta xaaladeedii iyo dhibaatadeedu waxay ahayd baanu ka wareysanay waxa weeye wareysigii markaanu dhamaysanay kadib saddexdeedii qof ayaa isku noqonay go'aan baanu gaarnay markaa kadibna markaanu taladii isugu noqonay taladeedii waxay noqotay in aanu caawino hooyo Xaliimo Ibraahim oo markaa cabashadeedu ay ahayd ama waxa ay ka cabanaysaa ay ahayd inay horta marka koowaad ay ahayd hooyada ah islaantaas oo markaa u shaqeyso qoys waxay u shaqeysaa markaa inanteeda oo maskaxda aan waxoogaa ka yara caafimaad qabin waxa weeye inankeeda amba caruurteeda mid kamida 4 caruur ay markaa lahayd mid kamid ah 2010kii buu tahriibay waxa weeye tahriibtii markaa de lacagtii markii loo waayay ayuu tahriibtii ku dhintay sidii bay ku weydo way ka samirtay mid kalena isagoo maskaxda ka yara xanuunsanaya ma aragto magaaladaas ku jira uma yimaado meel uu jaaniya cidhibta dhigay ma taqaano cabashadeedu markaa ganacsiga yar ay haysatayna waxa uu ahaa salad yar oo aan badnayn ayay meel ku iibisaa waxa weeye kaariyoon ma haysato waxa uma haysato waa 00 bay taageertay run ahaantii waxay ku jirtaa kiro guri jiingada oo kiro ay ku jirtaa guriga waxa laga qaadaa $40 sidoo kale laydhka waa $13 waxa weeye biyihii baa u dheer baahiyaheedii kale oo dhan baa u dheer kadibna intaan ganacsiga u sameeynin ayaanu ku niri hooyo maxaad maanta garan kartaa ee u baahan tahay ee aad ku shaqeysan karaysaa kadibna waxay tiri khudaarta cagaaran ayumaan u garan karaa kadib waxaanu u kuurgalnay hawsheedii baanu galnay waxaanu u soo iibinay kaariyoon waxaanu u soo iibinay miiskii la saariyay waxaanu u soo iibinay kursiga iyadu ku fadhiisanaysay waxa kale oo u soo iibinay bacdi hadhow markii ka rawaxaysa ay ku xidhan lahayd waxaanu u soo iibinay xadhigii ay ku xidhan lahayd waxaanu u soo iibinay baradho waxaanu u soo iibinay basashi waxa adoo khudaartii oo dhameystiran oo aanan midna ka tagin ayaanu u soo iibinay kadibna iyadoo faraxsan ayaanu iyadii ka xaynay markaanu ka xaynay waxaanu geynay meel lagu iibiyo dharka iyadii inanteedii markaa guriga joogay ayaanu aradbeel u iibinay aradbeelkii ka soo haddana waanu ka xaynay waxaanu geynay bakhaar waxaanu markaa u iibinay yani raashinkii ay kaga bixi lahayd bisha Ramadaan oo dhameystiran oo aan midna aanan ka tagin waan u soo qaadnay gurigii baanu u keenay waxa weeye gurigii markaanu u keenay ayaanu haddana dareenkeeda weydiinay oo ku niri bal hooyo waxaad ka warantaa saaga markaanu ku iiminaynay iyo hadda siday tahay kadib run ahaantii farxad bay hadli kar weyday iyadoo faraxsan oo qoslaysa oo nasalaamaysa oo noo ducaynaysa oo Premier Bank ducaynaysa oo waxa weeye anaga noo ducaynaysa oo cameraman ka ducaynaysa ayaanu ka nidi assalaamu calaykum waxaa hadda madasha uu ka dhacaya tartanku soo galaya madaxa barnaamijka tartanka adeega bulshada waxaa sidoo kale iyaguna hadda soo galaya xubnaha guddida garsoorka barnaamijka tartanka adeega bulshada bal markana aynu kala baranno xubnaha hagaya barnaamijka adeega bulshada xamse cumar ku joog waa agaasimaha tartanka adeega bulshada ee jaamacadaha Soomaaliland xamse waa samafale ka shaqeynayay adeega bulshada muddo ka badan 12 sano waa bare wax ka dhiga jaamacadaha dalka gaar ahaanna kuuliyadda cilmiga adeega bulshada waa qoraaga buuga dhacda iyo dhugasho laga qoray xaaladaha bulshada Axmed Nuur Muuse waa aqoon ku takhasusay cilmiga adeega bulshada kana diyaariyay shahaadooyin kala duwan waa mid ka mid ah asaasayaashii iyo hormuudkii hore ee kuuliyadda cilmiga adeega bulshada ee jaamacadda Hargeysa waa asaasaha iyo gudoomiyaha jaamacadda Maandeeq ee magaalada Hargeysa Sheekh Xamse Xabiib Xuseen waa mid ka mid ah culimada Soomaaliland oo wax ka dhiga masaajidada Hargeysa waa tababare iyo aqoon bixiya tababaro la xiriira islaamka iyo dhaqaalaha waa qoraaga buuga 100 mashruuc iyo mashruuc oo ka hadlaya saameynta iyo hirgelinta fikrada ganacsi oo midho dhala Fuad Cumar Yare waa samafale iyo fanaan caan oo ka shaqeeya adeega bulshada
in ka badan 7 sano waa aasaasaha iyo hogaamiyaha ururka samafalka ee Fuad Foundation oo ka howlgala dalka iyo qaar ka mid ah dalalka caalamka ee Soomaalidu ay degto. waxaa loo yeedhayaa tartamayaasha 2 kooxood waxaana guddidu ay su'aalo ka weydiin doonaan waxyaabaha ay soo qabteen. waxaan halkan uga yeedhayaa groupka Armas 1 iyo Abaarsa 2 labada kooxood ee halkan taagan marka hore soo dhawaada. marka labaad shaqo culus baa idinka laftigiina la idiin diray. waxaa la idiin diray inaad soo heshaan hooyo dan yara oo suuqa ku ganacsata isla jeerkaasna aad nolosheeda wax muuqda ka beddeshaan. taas ayaanay idinku qiimeyn doonaan guddidu. bismillaah magacaygu waa Nicmo Saalax wadhawahay feeristili horta markan aragnay hooyadaas aadka u tabaalaysan fikirkii ugu horeeyay nagu soo dhacay ayaaba ahaa meesha ay fadhido iyo khatarta ay leedahay. anagu ogsoon khatarta ay leedahay waxaan ka fikirnay intaana wax qaban positionkii aan dejin lahay. marka ilaahay baa mahad iska leh indhabirta idaacada ninka haysta ayaa waji ahaan aanu ugu tagnay uga waranay kabacdi deetana isaga ayaa nasiyay meeshay xitaa habeenkii markay rawaxaysa ay ku xareysanayso waxaasoo dhan isaga ayaa noogu deeqay ilaahay. taa horta intaanu isku dayin ka hor waxaanu ka fikirnay qofkan yacni yaanu inagu tiirsanaan inaga isagu waxa la soo baxo. marka waxay noo sheegtay muuskeedan ama qanacsigeedan haddii loo sii ballaadhiyo kale in iyadu intan ka badan oo kale uu la soo bixi karto. marka inta anagana lagu tiirsanaan lahaa hooyadiiyooda waxay ku tiirsantahay ama ay ka qanacsato taasaa nagala gudboonaatay tiiban iyadna self determination isticmaalay aan suurtagelinay. axmed nuur muuse. bismillahi raxmaan raxiim. horta marka hore waan bogaadinay wax fiican baa qabateen runtii halkaa qabateen hawl muuqatay ahayd. laakiin waxaan weydiinayaa hal su'aal baan weydiinayaa labadiinaba waana su'aal guud oo labadiina ka wada jawaabaysaan. hooyadaa aa xulateen waxay ku dhex jirtay hooyooyin kaloo dan yaroo ganacsanaya oo ay isku goob haayeen ama ay iskaranayeen labadaba. hooyadaa salad ka iibinaysay hooyadaa muus ka iibinaysay. ma isku dayda inaad qolooyinkii kale qanciseen oo aanay iyagu arag in loo eexday hooyadan? haddayse haa tahay maxaa ku qanciseen aad ugu sheegteen inaad hooyadan caawinayso oona iyan iyaga caawinin? waa su'aal guud labada su'aal labadiina waxa aan hooyooyinka kale kaga xulanay waxa weeye dee qofka inta loo dul tago un la iskama qaato qof. waxa weeye waa inaad tallaabooyin qaadaa. waxaanu kaga xulanay qodobka koowaad horta waxay ahayd qof weyn oo waxay qof waayeela sida halkaa laga arkayay. qofka labaad marka labaad waxay ahayd qof hayn yar oo aan waxba haynba. yacni ma odhan karno hooyadaasi shaqo tag weeyaan oo way shaqaysaa ma odhan karno. laakiin annagu waxaanu u arkaynay waxaanay haysaa inuu yahay wax maararowa oo aan shaqaba ahayn. qodobka saddexaad aanu kaga xulanay waxa uu ahaa inay u shaqayso qoyska markaa caruurteeda ah. caruurteeda bar waxa weeye dhimirkay waxoogaa in yar ka yara xanuunsanayaan qaarna waabay ka tahriibeenoo meel kuma oga. markaa dhibaatooyin badbadan oo isbiirsaday aawadeed ayaanu ku xulannay ahaydna weliba yacni meel ay il dhaqaale ka hesho amba cid wax ka bixisaana inta badan may jirin. cid kale ma barbar dhigteen? waan barbar dhignay haa. marka hore taargetkaygu 10 qof baanu indhaynaysanay laakiin 4 ka mid ah ayaanu wareysanay. 4taasaanu markaa iyada kala dhex hooyooyin kale markaa waxaanu ku qancinay yacni iyagaa u arkayeyba inay ahayd tii ugu jilicdarsanayd. aad baad mahadsantihiin. aad baad mahadsantihiin bahda Armas. bismillaah horta way jirta hooyooyin la jaaraha iyada iyagaaba nagu goobinayo lahaa hooyada caawiya maadaama dee iyagu haysteen aan hooyadani dee ka yarayd oo wax yar ay haysatay iyagaaba nagu lahaa maxaa la hadaa aniga iska daayo kala caawiya salaajeedu ayadu waxaan ugu dooranay dee maadaama ahayd hooyadan yara oo haysataa ilmo xanuunsanaya oo dhimirka ah maadaama dee hooyooyinka kale markaan wareysana aan la barbar dhignayno isku mid ahayn waxaan ka dooranay hooyadan ilmaha xanuunsanaysa haysataa. waa mahadsantihiin. su-aasheeda labaad waxay noqonaysaa diranayaal bulshaatiin oo idinku cilmiga bulshada baranaysa social work baa baranaysa. waxaan rabaa inaan ogaado waxaa ka barateen xaaladda aad ama labada hooya caawiseen idinka bulshada ama dirane bulsha ahaanna waxaan iskala gudboon. hooyadaasi de hooyada qura dhex joogta maha Somaliland hooyooyin fara badan baa jira. marka maxaa iskala gudboon dirane bulsha ahaan? waxaa ku horeyn doonaa bahda Armas. horta waxaan cashar ka baran
wixii lagu sharixi jiray samuurada in lagu oran jiray principleskaas social work loo adeegsadaa code ethics loo adeegsadaa wixii oo dhan in directly loo soo isticmaalnay sidoo kale in program suurto gelin karno taana waan soo xaqiijinay sidoo kale waxaan ka soo baranay badanka hooyooyinka danyarta ee suuqa ku qanacsada yacni haddii self determination loo isticmaali lahaa ama la weydiin lahaa lagu oran lahaa qofkaas idin maalgelinay maxaa maskaxdiina ka quuxaya inay yacni horumar badan sameyn lahaayeen laakiin ay waayeen waxyaabo aduu dhaqaalo kale bahda abaarsan bismillah haddaan su-aasha si kooban uga jawaabo kolley su-aashaasi way gu ballaaran tahay adii la idhahdo maxaad ka barateen barnaamijka waxyaaba badan waa la sheegi karayaa laakiin anigu waxaan kusoo koobayaa 2 qodob qodobka koobaad waxa weeyaan meelaha aynu u haysanno suuqyo inay yihiin amba dadku ay ka ganacsadaan amba dadku ay wax haystaan markaad u guurgashid hawshooda ee hawshaad caawimada aad ka shaqaynaysid waxyaaba badan baad arkaysaa waxa ka mid ah dad badan oo dadku isleeyihiin waxbay haystaan amba hooyooyin badan oo dayacan baad arkaysaa aan waxba haysan sidaan anigu hooyooyinkan la kulnay kale iska hawshooda iska maarar uun tahay marka dad badan oo qarsoonaayo dadku ay u haystaan inay maaragtay wax haystaan ayaa adiga aad arkaysaa baahiyooga gaarka midda labaad ee aanu qofku ka baran karaa waxa weeyaan inaad mararka qaarkood aad arkayso intaasoo qof oo baahan marka waxyaabaanu ka baranay waxaa ka mid ah inaad kala doonan karaysid dadkii oo dadkii way sii kala daran yihiin inaad kala xuran karaysid dadkii baahnaa iyaduna taasina waanu ka kororsanay aad iyo aad baad umahadsantihiin xamse waad mahadsantihiin su-aashaydu aniga waa lambar unbaad iigu jawaabi doontaan insha allah 2 su-aalood baan idin weydiinayaa su-aasha guud ee ustaadadu idin weydiiyeen unbaa si kale u dhigayaayo imise hooyaad la kulanteen qolo walayba mise markiibaas umaad la kulanteen tira inaad ii sheegtaan tan labaad shaqada aad u qabateen oo 1 2 3 anaga horta markii hore waxaan ku horeynay suuqa waaheen waxaan kula soo kulannay tira ahaan 4 hooyo kabacdi 4taa hooyo iyagu way haysteen qalabkii waxaasoo dhan way u dhammaayeen sidoo kalena caruurahooda iskuul way dhiganayeen markaan wareysanay xaaladoodu iska normal bay ahayd sidoo kalena waxay ka yara cabanayeen suuqa siduu u adeeg yahay 4 hooyo iyo hooyadan 5 iyo hooyadan oo 5 ku ah si fiican bilow ilaa dhamaad maxaa u qabateen hooyada horta lambarka waxaan u qabanay kaaryoona wax ku qanacsato sidoo kale maxaan ku dhahday agabkay ku iibin lahaa muuskiyo kale ay ilaa 7 u yaali kara tiina waan u qabanay sidoo kale raashin hooyada waan u dhignay raashinka waan u qaadnay hooyada sidoo kale waxaan u qabanay dhar ay xirato ama ay ilaa ugu tala galnay ciido kale ama ay ku tukato kale taana waan u qabanay اللهم صل على محمد حتى هو إذا حين نويبنا مرسته الله يله بعد أبارسو بسم الله الرحمن الرحيم waxaanu la kulannay 10 hooyan la kulannay laakiin waraysiga intaanu ka qaadnay waxa ahayn 4 kamid ah hooyo iyo hooyada shan ku ah ma 4 kaliya aanu ka qaadnay oo iyadu ay kamid tahay way qodobka labaad shaqooyinka aanu qabanay waxa kamid ah yani marka hore ma haysan kursi ay ku fadhiisato iyo weel ay ku ganacsato midna ma ahayn kursi baanu soo iibinay kaariyoon iyo waxaan u soo iibinay miiskii la saaray khudaar dhammaystiran baan u iibinay raashin dhammaystiran oo bisha ramadaan ay kaga baxdaan u iibinay aradbeel baan u iibinay miisaan xataa waxaan u iibinay hadhow khudaarta markay miiska dadka iibinayso ay isticmaashay ku ganacsan karto maantana alxamdulilah waa hooyo shaqaysanaysa oo ka mid ah hooyooyinka markan guddida garsoorka barnaamijka ayaa qiimeyn ku samaynaya tartamayaasha labada kooxood isla markaasina ku dhawaaqaya cidda guuleysatay horta guul iyo guuldaro labadaba meesha waa loo yimi oo loogu soo talagalay haddii iyagu guuleystaana waa anagoo guuleystay may ka dhigan tahay haddaan anagu guuleystana iyagu because of hal gool baanu ka sinay inaan u wada soconayn kolley waxaan marka horeba barnaamijka u galnay inaanu bulsho caawino keliya ma haynan tartanay laakiin waxa ahayd inaanu bal guryaha ka soo baxnaan baahiyaha iyo bulshada ogaano waan umbaleenay haday groupka dhigayga soo baxaan anagoo dhan soo baxnay gobonimo kadib markaan isu geynay qiimeyntii kala duwaneed ee xeerbeegtu ku samaysay kooxda Armas 1 wadarta markii la isku geeyay waxa yeeleen 112 halka kooxda Abaarso ay heshay 95 saan sheegayna qiimeyntaas waxay ka timi saddexdeedu markii la isku geeyay nambaradii la bixinayay marka wadarta guud baa la eegay marka hambalyan leeyahay waxa soo baxday Armas 1 inay wareegga labaad u gudubtay Premier Wallet waa adeeg cusub oo uu soo kordhiyay Premier Bank waxa uu ku fududeynayaa inaad si sahlan u maamulato lacagahaaga iyo dhammaan adeegyada kale ee bankigu leeyahay adeegsiga Premier Wallet waxa uu faa'iido kuugu leeyahay
waad iska diiwaangelin kartaa adigoon akoon ku lahayn Premier Bank haddii aad ku leedahay akoonkaaga ayaad ku xidhan kartaa kana maamulan kartaa si fudud ayaad lacag ugu diri kartaa saaxiibadaada leh Premier Wallet iyo kuwa aan lahaynba si fudud ayaad wax uga iibsan kartaa dukaamada iyo goob kasta oo ganacsi adigoo adeegsanaya QR code iyo lambarba ardaydu waxa ay ku bixin kartaa walletkooda kharashaadka waxbarashada ha ahaato iskuul ama jaamacad waxaad si fudud ula soconaysaa dhaqdhaqaaqaaga lacag bixineed habka aad wax u kharash garaynayso adigoo la soconaya xisaabaadkaaga markasta waxaad ku xidhan kartaa kaarkaaga Premier Bank oo si buuxda ayaad uga maamulan kartaa furasireedka Mastercard-kaaga ayaad ka bedelan kartaa waad ka xanibi kartaa haddii uu kaa lumo dibna waad u furan kartaa marka aad hesho waxaad lacag kala bixi kartaa wakiilada Premier Bank midka kuugu dhow xarumaha bangiga ATM-ka kuugu dhow kaar la'aan waxaad lacag u diri kartaa in ka badan 110 dal oo dunida ah adigoon u baahnayn inaad timaado xarumaha bangiga waxaad lacag ka heli kartaa daafaha dunida oo dhan waxaa lacag lagaaga soo xawili karaa Wall Remit iyo Transfer Galaxy adeega online banking ayaad ka dhaxelaysaa Premier Wallet telefoonkaaga WhatsApp-kaaga iyo email-kaaga ayaad ku helaysaa ogeysiis ku saabsan dhaqdhaqaaq kasta oo aad ka samayso Premier Wallet la soo deg hadda application-ka Premier Wallet oo ku adeegso dal iyo